السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلام أصحابتي إذا قالي كسر وهذا جنل كيني وفوسي سكرت رسيبس جنل. فالله هذا عصبتها قاعد مفر كسر هذا هرو جوتنا منك هذه واي هاي سمرتيننا ما أنت حايدين وضع عسرية فضوت فضوت وحبا مسدوبيسيد وحفرنا لقلنا عمله بسكت كوحا استعمالها يا متك أركيسين مد الله على متك كاسو غربوها يا استعمال كرتها هذا معانك سايد كان عيسو متك سكرت لهين هذا معان الماء وربطه ويهينا متك معانك كديغان كرتا أذي يدوق هذا بسكتك هو الفوضيسان كان ugu soo shubay laakiin haddii uu food processor ku oolinin waxa isticmaali kartaa inta bac ku shubtid ina maaragtay bahalka oo lagu fidiyo burka jak ku siisid hadda koor ama sameeynayo waa soo galiyay marka sidaas sameyn kartiin haddii kale waxa sameyn kartaa inta weel ku shubtid bakeeriga shaaha jug ku sii inuu badan noqdo qasam ahaan xataa soo qayb nooshahay asaas sameyn kartaa inta waxaan ku soo shubay 3 qaad camal oo ah subag bata isticmaala hadda subag caadi ku yaalo iyo hadii olive oil ku taalo isticmaal muhiimada waxa waa inuu buskudku jilco oo isqa qabsado kisto oo qaleelka saayidka ka boo waxaan isticmaalayaa weelka doolshaha lagu dubo weelka aan isticmaalayo wuxuu ku fiican yahay uu furmaaya alaabta dhan banaanka igu soo baxaysa laakiin hadaa haysanin kanoo kale waxa isticmaali kartaa asagoo maarta caadi ah hadhowta waa jaranay waxaad qaada oo soo baxsan kartaa haddii maarta marti idad ah soo bandhigeenin oo qurqurux ka rabinin oo cunuule ka rabtid qaadada gudaha u gashanay ku soo baxsan kartaa marka muhiim ahan ina weelka haysatid waxa diidaya ina hal shay inta ma haystid isdhahdid u joojiso waxa sameeysan lahayd marka sidaas waa sidan optionka labaad in ku soo sheegay asxaabteyda gacanta ku toosiyay hadaa rabtid way qaado ku toosi adii dooqaada waxa isticmaaltinka oo xalaash ah oo u jeedin xalaal ah ku qoran iska hubi marka soo gadanaysid lacalaha qadad aan fahansanin hadii jiraan hada hore u taqaanan waa taqaana keep going marka gelatinka qaar waxa jira isa xalaal ku qorneen oo laga soo yeelay hilib doofaar waxa laga sameeyay nooca xalaash ah ayaa isticmaalaya maadaama dad muslim aan nahay oo ilaahay uu soo ogoleyn naga reebay marka biyo yar ku soo qasaya biyo caadi ah laba qaad camal biyo isaga qasano iga badatay biyaha kadibna waxa meel aan sii dhiganayaa next step insha Allah ila daawada asxaabteyda qaaliga ah inta waxaan ku soo diyaarinaa whip cream oo ah midka budada ah laba xirmo ayaa isticmaalaya kadibna waxaan ku soo dari doonaa biyo xoogaa qaybta farinjeerka qaybta barafka cabaar galiyo si degdeg ah iyagu qaboobaan inta shaqada haay hadaa fursad haystaan xil hore sii qabowso sidoo kale caano waa isticmaali kartaa hadaa rabtid bedelka biyaha marka biyo hal koob camal oo qaboobaha isticmaalaha whip cream kan ani keeg imina ma marinayo marka qiyaasta biyaha kalama jecli oo hadhowtay waxaan ku daraa gelatin waxa loo isticmaalaa inuu maaragto waxyaabaha qaar uu isku dhajiyo flavorna uu leeyahay wuuna ku adkeena waxa aad ku darto calashaan way is haysanayaan laakiin waadna ka maarantaa oo muhiim ahan oo alaabtan waa isku dhigi kartaa iyadoo aan gelatin lagu darin waxa ku soo dar caano hal xabo hal gasac oo ah condensed milk oo ah caanaha macaan oo diyaarsan supermarket kasta ka soo heli kartaa alaabta isticmaalayo dhan meel alaala meel adduunka joogto supermarket ugu dhaw ka soo heli kartaa xamar gabdhaha joogo oo laga yaabo inay su'aalo iga soo weydiiyaan supermarketka ka soo heli kartaa hadii ahaan leed whip creamka condensed milk meelaha caadiga ah lagu gadaa gelatinka sidoo kale maanta iga dhagan tahay buskudka wax kasta oo isticmaalayo waa ka helaysaa meesha joogtid iyo gabdhahan xamar joogin gobolada joogaba insha Allah waxaan ku soo daray gelatinkii oo maaragtay dhowr qaada inta kana gadaal uga soo daraya laakiin clipka ma idin qabanayo waa ku soo wada shubay buskudkii aan sii diyaarsan qaybta qaboojiyaha farinjeerka cabaar ku jiray muhiim ah laakiin si gasho si creamkaada marka ku shubaysid baweel ku qabow kuugu sii ahaado alaabti condensed milkigi whip creamka asaga macaan uu leeyahay condensed milkigana saaid uu macaan yahay hadaa rabta half ka dhigo hadaa ilmo siinid waa weyn siinaysid alaabti waa sisimay farinjeerka qaybta qaboojiyaha barafka ayaa noo galiyay hadaa degdeg u rabtid qaybta barafka gasho hadaa waqti haystidna qaboojiyaha caadiga iska gasho next day isticmaali kartaa
inta waxaan kusoo isticmaalaa chocolate spreadka caadiga ah oo burka iyo waxyaabaha lama marsado. haddaadan haysan waxaa isticmaali kartaa Nutella, Bizela, wax kastoo adi ku yaala daarato. loosa isticmaali kartaa adi iyo dooqaada, ma fahamtay? looska waxaa isticmaali kartaa calashaan oo bataga ah intaa kuleysatid. asxaabteeda marka digsi biyo ku karkarso, korka saar waa ku dhalaaleysaa ama microwave-ka 30 ilbiriqsi gisho. alaabtaan waliba markaa kasoo qaado meesha iyadoo kulul hore inaa uga shubto maaragtay waxaa ka fiican inaa waxyar kuleel ka biso soo walaaqdid kisto korka uga shubay. waa ujeedaa sidii u fududahay shaqada dhan, waa wax iska simbool ah, waqti badan ma kaa qaadanayso. buskudka burburi meesha ku shub, kadib kariimkaada soo qaso, ku gadi chocolaate-ka dhalaali markuu cabaar. hadda markaan chocolate korka uga shubayo waa ujeediin alaabta hoose way isaysataa almost because waa soo qaboojiye. hadda qaboojiyaha caadiga ah ayaan gelinayaa, barafka uma baahni. meesha barafka cabaaraan kusoo haya adi waa isku soo dhagaan alaabteydii. inta waxaan ku isticmaalaa latooska, buskudka latooska ah oo aadka u macaan. waa buskud adduunka dhan laga yaqaana sida Oreo kale international ah. marka asaga xoogaa yar kasoo shiidaa korka ugu quruxsan doonaa insha Allah. hadhowta markii qof cunaayo oo saxan loo saarana buskudkana 2 xabaa loo agdhigayaa, waxay kusoo baxaysaa macaan isku goosa camal, ma fahanti? marka latooska korka uga soo shubaya alaabteeni. asxaabteyda qaaliga ah waxaan rajeynaa insha Allah inaan alaabtaan hadday marti ku imaato kasoo tuurtid, adig isaga casiriyeysatid, ilmaha aad u samaysatid, xaajigaad u samaysatid, ma fahanti? macmacaanka adduunka la dhahaa, faarahan kasoo tuur waaye. doolsho ma ahan, waana doolsho haddii loo fiirsho oo uu egyahay maahan oo friendis waaye. waa furaya marka haddii aad bahashan furmaysa haysan sideeda kusoo jaran kartaa, qaadadaada geesa gashan kartaa, cadkaada kasoo goosan kartaa. buskudkaada latooska ah 2 xabo ag dhigo, isku goosa maahan oo haddaa rabto iska soo qaada canab, haddaa jeceshayna isku cuntid wax dhanaan iyo qudaarta iyo alfaaraha macmacaanka ah. haddaa rabto waxa ku jarjaro kii strawberry dooqaada ciyaar, ma fahanti? buskudkan korka uga soo shubaya asxaabteyda. kadibna 3 xabo latooski ahaan korka kasoo saarayaa. afaarahana sida kusoo baxeen waa ujeediin asxaabteyda qaaliga. aad iyo aad u mahadsantihiin daawashadiina. fiidiyoyaasha mar hore ay idin duuba bil ka badan waa duuban yihiin, haddana ma idin soo gudbiyo. chocolate-ka aan korka uga soo shubayo qurux ma uga raadinayo. ana alaabtaan caruurteyda u samaysanaa, marka chocolatada way soo hartay, waxay kasoo hartay doolsho aan sameeyey. kadibna waxaa waaye maadaama ay macmacaanka jecel yihiin aan korka uga soo shubo, laakiin intii horaa ku filan. waa kana waa noo soo jaray insha Allah. hortiina kuma dhadhamin, sorry. videoga intaanu ku dhamaa doonaa. waxaan kaga sii tagayaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. till next video insha Allah.